السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabi halkan waxaan ku qaadanaynaa sidee baa ugu xiran kartaa WhatsApp messenger-kaaga security-ka adigoo ku xirnaya haddii uu taleefankaaga yahay fingerprint haddii uu leeyahay fingerka ama haddii caadi oo lahaynba si caadiga ugu xiri lahayd ayaan ku qaadanaynaa. waxaa soo galaysaa messenger-kan saa ujeedaan hadda kuma xirno wax messenger log kuma xirno. waxaad imaanaysaa saad ugu xirtid meesha sawirkaaga uu saaran yahay. meeshaas markaa ku dhufatid waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay privacy, deetana waxaa ka tagaysaa meel upload ayaa ka tagaysaa. meeshaan ayaa on ka dhiganaysaa adiga off ayay ka tahay. haddii uu leeyahay taleefankaaga fingerprint waad ku xiranaysaa, haddii uu lahaynna unlock another way aad dhahaysaa. markaad dhahdi use password ayaa dhahaysaa, taleefankaaga passwordka meesha uu ku xiri lahayd ayaa ku qoraysaa. haddii tusaale taleefankeena passwordkiisa aan geliyo isticmaal ay ugu xiran aniga next aan dhaho passwordkiisa sidaas ay ugu xirmeen. kuwan kusoo baxayaan ayagana waxaa waaye daqiiqadaha uu ku xirmayo. markii aad ka baxdid daqiiqadaha ay ku xirmayaan waaye. hadda meeshaan 1 minute after leaving message waa marka aan ka baxo kadib hal daqiiqo kadib ayuu security isku xirayaa, ama 15 daqiiqo ama hal saac kadib. adiga dooqaaga haddaa rabtid inaad isla markii uu ku xirmo halkan ayaa ka dhiganaysaa after I leave messenger kadib waan ka baxaynaa oo soo baraabeynaa. marka haddii aan dib ugu soo laabano wuxuuna weydiinayaa passwordkii ana fingerprint ay ku xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saxaabi video haddaan ka heshay like saara mahadsanid.